waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeeynaya ka soo qayb galayaasha aasaaska urur siyaasadeedka ka waxaanu in badan aragnay urur siyaasadeed oo wan ma washooya waxa ugu dambeeyay xisbiyada iminka miidkoodii la sii sido xisbigii weynaa ee dad badan oo maanta halkan fadhiya ay hore uga dhigayeen ee xisbigii kulmiye loo yaqaan waxa aynu maanta halkan joognaa inaan helno xisbi la wada leeyahay si loo helo dawlad la wada leeyahay xisbi fiican u baalan dhisi kara dawlad fiican markuu xisbinimadu hagaagto ayay dawladnimaduna hagaagaysaa waxaan u baahanahay inaan xisbigan maanta waxaan joognaa asaaskiisii gobollada dad badan baa ka yimid dadkaa gobollada ka yimid waxaan u baahannahay in ay ka shaqeeyaan sidii xisbiga looga soo dhisi lahaa gobollada sidii urur siyaasadeedka looga soo dhisi lahaa duurtaba xisbi baa u qaatana de xisbi ma dhahayba xisbi kalaa jira inay urur siyaasadeedkan qaab dhismeedkiisii ka soo shaqayno heer gobol heer degmo heer xaafadeed oo qof walbaaba uu ka qayb qaato inuu contributionka bixiyo inuu isagu maalgeliyo sidii aan xafiisyo u lahaan jirnay sidii waqtiyadii kulmiyaha la asaasina uu kulmiya u ekaa si ka weyn inaan u asaasno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madashu dadka aad fara badan xildhibaanada golaha wakiilada deegaanka asxaabteeda xildhibaanadii hore golaha wakiilada oo halkaas soo fadhiya rag badan soo fadhiyaan dad badan oo aan in badan ka soo wada shaqeynay xisbi weynihii kulmiye la oran jiray dad in badan aan ka soo wada shaqaynaynay waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa inuu dhisan doono xisbi la wada leeyahay maxamuud waata halkaa fadhiya sida uu maanta aasaaskaa qayb uga yahay ayuu qof waloo halkaa fadhiyana aasaase uu u yahay waa xisbi la wada leeyahay badankeedu waa maxay waxaynu iminka ansixinay oo calaamadii meelay sidaa ahayd dee gacanta u taaga waa farisi bale